daawadayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaanba ku soo dhawaada barnaamijka ganacsiga amal. barnaamijka ganacsiga amal waa barnaamij asbuucla ah oo asbuuc walba kaga yimaada TV-ga SBC xarumihiisa kala duwan. barnaamijkan waxaan ku qaadaa dhignaa mowduucyo aad iyo aad muhiim ah oo taabanaya horumarka iyo horumarinta ganacsiga ummadda Soomaaliyeed. mar walba waxaanu ku marti qaadnaa qof aqoon u leh xog dheerna ka haya موضوع مالنتاس لغو فلنقينيو أما لغا هدليو موضوع إن مانتا وحكو سابسان يهي سيدي لو أبورا أما لو ديسا غنعسي كو غارة وحانا مانتا مرتئينو كو برامج كينا أقاسمها واحدة مالية يحساباتك بقيق أمل دكتور بشير عبد الصمد حريد دكتور كسد أو برامجك غنعسي أمل هذه أبا محسنتا وكل وهي جزاك الله خير دكتور حلقتني وحلقتي سديدات برنامجك ganacsiga amal toddoba xalaqo ina soo dhaafay oo inteeda badanna adigu aad u ahayd marti ama aad u soo jeedinaysay xalaqadii ugu dambeysay maxay ka hadlaysay mise maxay naga xasuusin kartaa xalaqadii la soo dhaafay طبعا iyo xalaqadanba way isku xiran yihiin waxayna ku xiran yihiin kuwii ugu horeeyay oo aan soo sameynay oo koobaad ilaa toddobaad oo ka wada hadlay shaqsiga Soomaaliga ah sabab uu ganacsi professional u heli lahaa yani barnaamijkan hadafkiisa guud markasta wuxuu ahaa ganacsi halbeeg iyo standard leh oo aan ahayn ganacsigii hore ee taqliidiga ah laakiin si aan taa u helna waxaan ka bilownay marka hore in aan bilowno qofka qaababka uu suuqa ganacsi ugu najixi karo iyo sifooyinka laga rabo xirfadaha laga rabo maxay yihiin marka taas waxa ka mid ahayd xalqadii la soo dhaafay waxaan uga hadalnay shaqsigu sidee ayuu مثلا shaqsiga waxyaalaha uu si gooni uga heli karo inuu ganacsi gooni yeesho yani tusaale ahaan saan xalaqaadka hore ku soo sheegay waxa jirta ilaha dhaqaalaha dhowr waa yani qofku inuu مثلا shaqaalanimo ku noolaado mushaar qaato inuu qofku xirfad gooni ah leeyahay oo sida nootaaya ama dhakhtar uu yahay ama engineer oo meel u furan tahay qof madax banaan inuu qofku ganacsade yahay asaga business u furan yahay dad ku shaqeynaya iyo inuu مثلا qofku uu yahay qof maalgashado oo maalgashi ku fiican oo intuu hantidiisa qaado dad kale shirkado kale oo shaqeynaya uu ku maalgashado afartaas ugu muhiimsan qaabka uu qofku dhaqaale ku abuuran karo si shakhsi ah marka dakhli ku soo gali karo hadaba waxaan dhahnay mid ugu fiican oo ugu nololna wanaagsan uguna naajixsan xagga qofka mustaqbalkiisa ayhiisa dambe waa inuu qofku ganacsi u gooni ah u leeyahay ganacsi u gooni marka su'aal baa ka timid مثلا oo dadka qaar waxay soo weydiiyaan ganacsi u gooni maxaan ka heli karaa wuxuu kaga duwan yahay waxyaalaha kale waxyaalaha مثلا ugu muhiimsan ee aan dadka la wadaagi lahaa waxa kamid ah ganacsigu wuxuu leeyahay dakhli qofka isagu u xariisan karo yani dakhli aan cidina u jaangoynaynin أنا تصالحان قفك مركو شركة كشقينيو دخل قوام بوله $500,000 وحلا مده وجوكته لكن شخص مركو سحر أو شقي سنايو حلايا ما أنتو ربنا إنه كن سو حريستو ما أنتو ربنا صدق كن أفر كن سو حري صوما ما أنتو ربنا ساحده مركو حريات بيسين يصادق على وحاكا لهم حوها أي حريات كسين يسا وقتها شخص مركو وقف أو شقينيو حريات وقت ماله لكن marka uu soo shaqeysanayo ganacsi uu goona uu leeyahay xorriyadiisa waqtiga isaga maamulanaya xilligu rabana caruurtiisu la joogi kara xilligu rabo iska nasan kara xilligu rabo dalxiis buu aadi kara xilligu rabana uu shaqeysan kara haduu habeenkii aad u daaqa badan yahay ama aan firfircoon u hay habeenkii buu shaqeyn hadii firfircoonisu ay maalinkii tahay gelin hore uu shaqeyn marka xorriyad wuxuu haystaa waqti sidoo kale qofku nolol asagu uu naqshadaysan karo isaga naqshadiisa ayuu sameysanayaa يعني بينما قفك شقالها أما عد كلا وشقينيا وكشقينيا مبادئ ذا رقنك قيمك ذاتك الأيليهن شخصية أصلا جناس وجوني عليه أو دقالهان مذح بنان وحو سميسان كرا نولش وربا وسو وقيح ذي نوع وربا أيو سميسان نولش صوت بواحدها نوع سو وجوني وكذا ستايل سو خاصة أيو سميسان كرا sidoo kale shakhsigu waxa laga yaabaa himilooyin buu leeyahay shakhsigu markuu ujeedooyin fog leeyahay way uga fududahay inuu hirgeliyo markuu isagu dhaqaalihiisa madax banaan uu leeyahay waqtigiisa uu madax banaan leeyahay
baynamaa ay dhici karto shakhsiga dad kale u shaqaynayo himilooyinkiisa si sahlan kuma hirgelin karo sababtoo waqtina uma hayo ila dhaqaalana uma hayo oo dhaqaalihiisu uu xadidan yahay marka idan maxay siinaysaa haddiiba ujeedooyin qofkaas uu leeyahay iyo himilooyin uu doonayo inuu hirgeliyo mustaqbalka fog waxa ugu wanaagsan waxay tahay ganacsi u gooni inuu leeyahay ayaa ugu wanaagsan waxaa intaa dheer qofku markuu ganacsi u gooni leeyahay dad kale ayuu ku shaqaysan karaa yacnaha dadka ganacsiga ku guuleysta suuqa ganacsiga ee horyaalka oo مثلا suuqa ganacsiga waxyaalaha ay ku najaxeen waxaa ka mid ah dadka kale waqtigooda iyo caqligooda iyo fakarkooda ka faa'iidaan sidoo kale qof markuu intuu qof kale uu kobcin lahaa dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa wuxuu awoodi karaa inuu asagu dhaqaalihiisa uu kobciyo asagoo isticmaalaya dadka kale waqtigooda xirfadooda iyo maskaxdooda waxaa kale oo iyana muxuu ahaa ay dhahaan mar kasta oo qofku ganacsi u gooni leeyahay xirfadiisa dhaqaale oo kala duwan buu kordhinayaa يعني markaad ganacsi cid kale ay leedahay shirkad kale ama institution ay u shaqeynayso waxa laga yaabaa hal xafiis aad haysaa halka xafiis takhasuskiisa baranaysa adiga focuskaaga ama muxuu yahay waxaad xoog saaraysaa hal area su'aal ahaan dhinaca suuq geynta kale ama dhinaca xisaabaadka kale laakiin markaad adiga ganacsigaaga madax ka tahay marketing ama suuq geynta laga rabaa beecintii iyo beecshirada laga rabaa xayeysiinta laga rabaa horumarinta laga rabaa xisaabaadka laga rabaa marka maxaad kobcinaysaa xirfadahaaga oo dhan baad kobcinaysaa waxay kaloo dhahaan waa qofku markii uu ganacsi u gooni leeyahay way ka fududahay inuu xalaal miirad ahaado oo waa maxay asaga kontroolaya dhaqaalihiisa oo dhan asaga qaraaraadka go'aamada asaga gacantiisa ku jiraan ugu dambeyntii qofku markuu ganacsi u gooni leeyahay wuxuu baranayaa sirta ay maalqabeennadu qariyaan waxaan filayo aan xalaqadan ku ogaan doono insha Allah Soomaalida horta waxa lagu yaqaanaa inay yihiin dad hal-abuur ganacsi leh arintaas ma runba arintaas xalaqadii ugu horeeyaan yaan ku soo qaaday leeguna weydiiyay Soomaalida geeska Afrika markii loo fiiriyo dadku waxay ka mid yihiin ganacsiyada ugu fiican ama ugu naajaxsan leh gaar ahaan dawladahan hadda dariska la Soomaalida iyo Soomaalida lafteeda markii loo fiiriyo levelka ama heerka burburka uu gaarsiiyay hadana ay ganacsigeedu uu yahay runtii ay kala duwan tahay laakiin hadana sida hadda ka hor xalaqadan ku sheegayba Soomaalida ganacsigeedu ganacsi professional oo xirfadaysan ma waa ganacsi maalin kasta la abuuro hadana ay fududahay si sahlan inuu ku burburo waa ganacsi ay fududahay dadku juhdigooda iyo maskaxdooda iyo firfircoonidooda ganacsi way abuuraan laakiin markay abuuraan ganacsi in la abuuro kaliya ma ku filan yahay jawaabtu waa maya ganacsigu wuxuu u baahan yahay sida takhasusaadka kale oo dhan qofku u baahan yahay laysan inuu qaato inuu ganacsigana laysan u qaato dhakhtarnimada ma baraas gareyn karo hadduusan laysan ma sha Allah marka maadaama ganacsiga Soomaaliya inta badan oo baraarin oo sii socon xalaqadan maanta ka hadlaynay sida ganacsi loo abuuraa wax moodaa inay daweynayso Soomaha ciladaas dabcan xalaqadan sideedaad waxay ahayd ganacsi ku gooni markii aad yeelato oo aan xalqadii hore xoog ku saaray ganacsigaas aad abuurtay muxuu u baahan yahay yani xalqadaan ay ahayd muxuu ahaa qaybtaan xoog ku saari lahayn si fiican waxa koobaad ee u baahan yahay waxaan ka bilownay inuu yahay wax kasta in la qorsheeyo dabcan dad fara badan oo qoraa ah ama aqoon-yahana ayaa ka hadlay sida ganacsiga loo qorsheeyaa waxaa ka mid ah مثلا qorsheynta ganacsiga si fiican waliba ganacsiga Soomaalida xalqooyinka horena aan ku sheegay in aad looga faa'iideeyo buuga furaha ganacsiga oo qoray khayr la siiyo Ustaad Said Ali Shira oo ka hadlaya ganacsiga sida loo qorsheeyaa heerarka uu marayo sababaha inuu ka mid yahay sababaha ugu waaweyn ee failure-ka ama guul darrada suuqa ganacsiga Soomaalida ku keento waxay dhahaan dadka akaademiyiinta ama wax qora hadduusan qofku qorshe lahayn wuxuu qorsheeyay inuu guul dareysto oo ka dhigan hadaadan qorshe lahayn dhinaca u socoto ma taqaanid taasoo ka dhigan meesha tagi doonto ma taqaanid taasoo ka dhigan natiijada juhdigaagii iyo maskaxdaadii muruqaaga ma garanaysid haddaba qofka intuusan talaabo qaadin markuu go'aansado ganacsi u gooni ah inuu sameeyo ama gooni isu taag dhaqaale inuu sameeyo markaan dhahno waxa ugu horeeya qofka laga rabo waa maxay si qorshihiisa uu hirgalo inuu qoro yoolka ganacsiga
ama ujeedada ganacsiga loo asaasay intan taas u galin maadaama qof uu qorsheysanayo inaan wax qorsheyso markii laga rabo maxaa bilow ah oo aan sameynaya maxaa طبعا هذا qorsheyntan ka hadlayno qorshe ganacsiga waa ma aha qorshaha shakhsiga ah qorshaha ganacsiga ayaa wuxuu keenayaa inta aadan ganacsiga ku dhaqaaqin markaad go'aansato inaad ganacsi ahaan gooni isu taagto dhaqaale ahaan ayaa waxay ka rabaan inaad waxyaalaha horta kaga bilowdo ganacsiga ujeedada ka leedahay maxaad abuuri marka qorsheyntu way ka dambaysaa ka gadaal ka iman doontaa laakiin waxaad qeexi ujeedooyinka iyo yoolka ganacsigaaga uu leeyahay ganacsiga markaan leedahay shirkadan ka wada aniga wax nidaamsan oo مثلا doonay inuu macaamiil xadidan u adeego ayaan rabaa ganacsiga مثلا ma aha muxuu ahaa in la yiraahdo مثلا qof inta shay soo gada shay si iibinaya ganacsiga kama wadno laakiin waa institution dhisan oo magac cadaydantu kale yahay ganacsigan oo raasmaal leh oo xafiis loogu soo aaday iyo muxuu ahaa guri u kareysan leh dad ka shaqeeya ay jiraan waa institution waxaan dhahnay ganacsi bilowgii waxyaalaha aan dadka ka afeefto waxa kamid ahayd ganacsi waxaan ka wadnaa shirkaduna waa laba qof iyo wixii ka badan marka shakhsigu uu awoodi karaa in uu keligii inta shay soo qaado uu iibiyo ka ganacsi lama dhihi karo ganacsi wuu yahay laakiin de waa ganacsi koraya soo marka ganacsi koraya lama dhihi isaga ruuxiisu qorshe u baahan yahay filaya wuu u baahan yahay oo dabcan shaki kama jiro inuu u baahan yahay in uu qorshe u sameeyo laakiin shakhsi inta uu yahay waxba kama duwana qofka keligii iska noole mushaarka qaadanaya saddex ka ganacsi ma dhihi karna ganacsi waxaan leenahay shakhsigu waa inuu ka gudbaa kelinimo waa inuu wadar u gudbaa marka ganacsi ku gooni markaan leenahay qofku raasumaal buu sameeyay magac buu sameeyay xarun buu sameeyay dad la shaqeeyo sameeyay oo uu ku shaqeysto hadii uu dad kale ku shaqeynaynin haduu mushaar qaato haduu badeeca muxuu ahaa beec mushtariha wax sii gadaya soo gadaya farqi aad uma dhaxay dabcan weli waa shaqo ku xiran qofka dhididkiisa joogitaankiisa jiifkiisa ku xiran maalintu wax iibiyana dhaqaalu helaya maalintu seexdana waxa ma helay laakiin wuxuu markuu ganacsi maamul leh dad badan ay ka shaqeynayaan uu yahay magac leh meel degan uu yahay wuxuu awoodi karaa qofka soo safar ku maqma ganacsiga shaqeynaya asoo jiifa ganacsiga shaqeynaya dhaqaalihiisu uu kobcaya asoo shakhsiga hawlo kale laga yaabo mashquulsan yahay ma sha Allah marka qofka ganacsiga yarka ah leh kabarka haysta bibitada haysta dukaanka ligiis tabakaayada haysta isa ruuxiisa soo lagama rabo inuu dhaho horta way dukaad u iibinaysaa inuu cadeeyo walajeedka yoolka dhan uu kale yahay ruuxiisa waa run barnaamijkan dhanba waxyaalaha u sameynayna waxa kamid ah qof kasta meesha uu joogo inuu ka kobci karo qofkii aan sandaqad leh waa inuu sandaqadiisa ka gudbaa dukaan gaarsiiya company gaarsiiya kor u sii wada shakhsigii aan kuba jirin oo shaqaale ah ama aan waxba haynin waa inuu fikrad inta raadiyo wax abuurto oo ganacsi abuura laakiin ugu dambeynta meesha loo socdo waa maxay ganacsi xirfadaysan oo xirfad leh oo nidaamsan oo la tartami kara mustaqbalka sababtoo ah ujeedooyinka barnaamijkan loo asaasay waxa kamid ahaa mustaqbalka dalkan hadduu amni helo oo furfurmo ganacsiyo weyn baa iman doona ganacsiyaas haddaan ganacsiga hoose Soomaalida ganacsiga yarka Soomaalida haddaan standardized laga dhigin barnaamij xirfadaysan si professional loo maamulay haddaan laga dhigin ganacsiyaas kala imanaya suuqay ka saarayaan taa maxaa loo baahan marka si looga badbaado taas waa in ganacsiga Soomaalidu uu ka gudbaa sandaqad yar oo qof haysto intuu ka gudbo waa inuu gaaraa inuu mu'assasad noqdo mu'assasad markaan leenahay shirkad markaan leenahay afkaar kala duwan baa hagaysa 3 4 5 6 qof baa hogaaminaysa marka shakhsigu hadduu business yar keligii oo haysto tusaale ahaan shakhsiga meel yar cabitaan ku gadaya ama shaah qofka muxuu ahaa miis dul fadhiya waxaas oo dhan waa saxan yihiin laakiin waa inta ka gudbo ganacsi waa inuu u gudbaa ku shaqay oo awoodi kara inuu dadka la shaqo u abuuro asagana meeshii uu bil kasta ka heli lahaa dakhli hal qof uu shaqeeyay inuu heli karo dakhli ay shaqeeyeen badan ما شاء الله دكتور أدب ما سنتهاي ما دام قدر كواد وياهي إنه قفك عضيولك وكلية هاي جناعسيجا حجل دور حجل بلغ فيرين كرا إنه وليه هاي إنه بنادي كعاوية وحلال وكشقيستو الجناعسيجي وكل دويها أصلا مركا إلى أنت بين سامين كي يلان كرتا مركو يولكي سكوجان جويو ده وحن كشقيسنا يا ما يولكي وحوي إنان وح بني آذن كأنفعه aan u keeno ama aan ka shaqeysto arintaas marka fiiriso Soomaaliya aan dawlad xoog leh oo quality-ga iyo sheyga aan ilaalinayn marka
ganacsatada Soomaaliyeed hadday yool noocaas kala degsadaan oo ah inay wax tayo la keenaan ilaa intee ka qayb qaadan kartaa horta de markaan ka bilaabayna waxaan dhahnay qorshaha waxa ka bilaabanaya qofku inuu wax kasta qeexo yaani inta badan waxa ugu muhiimsan ujeedada ganacsiga aad ka leedahay xageed u socotaa iyadu adeegaysaa adeega aad keenaysaa ama badeecada aad gadaysaa noocee waa qiimo noocee aad ku gadi macaamiisha halkay joogaan say kugu imaanayaan sayd ugu tagee waxaasoo dhan markaad qeexda kadib yaa waxaa iman kara wax mustaqbalka waari kara oo muddo dheer socon kara waxaasoo dhan markuu qofku ka baaraan dego ayaa maxaa suurtageli kara inaad wax aad samayso tayo leh oo dabcan hadda innaga Soomaalida waxaa haysta wixii si caadifad lahayd isaga wada abuuraa moogta waxay keeni ganacsi yar aan samayn adna waad ugu dan ku kala garab abuure aniguna ujeedo fog ma lahayn adna ma lihid Sooma ana waxa laga qof kale kaga dayday adna anaad iga koobiyeysan markaas uu saas kale yahay marka waa maxay wixii wax caadifad ku dhisan marka waa ganacsi ana way kan ah oo aan macna ku taagnayn meel la u socon kaas marka shaki kama jiro inuu iska burburi doono qorshana ma lahayn markii horena himilo qofan ku waxaysay ma jirin macaamiishiisa inuu soo aqoonin baa laga yaabaa waxa uu gadaya uma qeexnayn qof kale ku arkay laakiin markuu qofku waxa soo dhan ka baaraan dago oo dhaho mesela badeecada ama adeega dadka kale aysan haynin aan macaamiisha anu u fidinaya waa maxay oo aan qeexo 1 2 3 inta soo shay oo dadka kale aysan haynin baan keenaya ganacsiga waaraya ee mustaqbalka fog leh ee horyaalka noqon kara kaas waa inagu marka waxaan rabnaa waa inuu waliba inuu qeexa kelima waa inuu qoraa qeexitaan kuma filna haddaan inta iska filan dhaho waxaan rabaa in tacliinta ugu qiimo ugu sareysa Soomaaliya ugu tayada sareysan sameeyna haddaan dhaho laakiin afka aan ka dhaho waxay dhahan dadka aqoon-yahanada mesela barnaamijka ku takhasusay ganacsiga wax macna ma leh laakiin waa inaan ta qoro aan darbiga ku dhajiyo oo aan qolkayga jiifa ku dhajisto oo xafiiskayga ku dhajisto oo meel kasta ku dhajisto waxaan doonay inaan hirgeliyo waa maxay waa badeecada ugu wanaagsan tayada ugu wanaagsan la inaan keeno ana shayga kaliya oo filaya aan iska koobin karin markaas dabcan maxay noqon adiga xataa hadii laga koobiyeeyo waxa uu qorshe fog buu leeyahay maalin kasta himila meel aad higsanaysaa jirta 50 sano 100 sano ganacsiga مثلا xalqooyinka hadda ka hor ujeed aan soo marna waxa kamid ahayd xalqooyinkii hore hadii ganacsiga la xirfadeeyo oo xirfadeysan yahay ganacsigu oo dadku ay aqliyadooda iyo aqoontooda oo dhan ay ku dhisan tahay si cilmiyeysan ganacsigaas wuxuu awoodi doonaa wuxuu noqon doonaa ganacsi ubadiyo u shaqeeya ganacsi jira ganacsi ay ka faa'iidaan ubadiyo kala duwan da kala duwan ama generations jiilal kala duwan generational business yani waa maxay ganacsigan maanta asaaso ama abuuro kala duwan inaan ugu talagalo ubadkaysi dhalaan kuwaysi dhalaan inay dheefsadaan mujada laakiin haddii iska yahay wax yar aan ku noolaado طبعا ميل لما قاري ولا كوبينا كنا محمود iska dhari doona oo iska dhici doona laakiin hadaan anigu marka horeba aan meel fog u socdo waxa aan maskaxayda ka guuxaya go'aamada aan qaadanayo horumarinta aan sameeynayo horyaalnimada aan doonayo naqshadeey waxa soo dhan dadka kale ma oga dadka kale marka ani bay korka iga arkeen moogta sawirkayga inta arkeen bay koobiyeen laakiin daan sawir kaliya ma wato aan wax qorshaysan oo sanadkan halkeen joogi doona sanad ku xiga xagan ku sii dhixi doona sanad kale xagan hoyan doona sanad yani intaas way xadaysan tahay maalin kasta meesha aan sii harsan doona ما شاء الله دكتور maadaama aad tahay agaasimihii waaxda maalgelinta iyo xisaabaadka bangiga amal ganacsigu uu ku horumaro qofku inuu yoolka noocaas kala samaysto kaalin uu banku ka qaadan karaa ma inuu iyaga tababar u sameeyo barnaamijka noocan oo kala ah dad badan baa ku daawanaya ganacsata ayaa ku daawanaya sidee baynu aynu uga faa'iideyn karnaa bulshada mawduucan haddaan ka hadlayn laftigiisa runtii barnaamijkan waxa loo aasaasayba wuxuu ahaaba amal inay ganacsiga Soomaalida ka dhigto ganacsi xirfadaysan halbeeg cad oo adduunyada laga yaqaan ku shaqeynaya oo uusan noqonin ganacsi koobi iyo cadifad isaga dhisan ama muxuu ahaa shakhsi intuu iska tooso wallahi ganacsiga hebel oo kale samaysanaya bangiga amal marka laba qaaba ama saddex haba aan dhaho saddex kaalin buu ka geysan karaa barnaamijkan waa mid barnaamijda waa kan baxaya hadda oo dadku inay macluumaad si cilmiyeysan inay u bartaan ganacsiga waxyaalaha u baahan yahay
qofku inuu barto ganacsigu inuusan ahayn shay intuu qofku iska soo subax iska soo tooso uu furi karo uusan ahayn sida injineerku u baahan yahay inuu barto waa dhismaha ay tahay qofka darawalka inuu barto baabuurka oo la bara ay tahay dhakhtarku ay tahay inuu u barto ay u tahay ganacsigana in la barto oo cilmi jaamacada loo galo iskuul ay tahay marka waa cilmigii horta bankigu faafinaya marka koowaad midda labaad bankigu kaalinta ku ciyaar karo waxa kamid ah tala bixin joogto ah qof kasta oo banki cilaaqo leh oo doonaya in uu horumar sameeyo dhaqaale ama dhaqaale ahaan gooni isu taago dabcan inaga waxyaalahan u dhiirigelin waxa kamid ah dadku inay business sameystaan waxa kamid ah meel istiraatiiji ku naala dawladda aad shacabkoodu u badan yahay oo ganacsigooda hooseeyana wad darsayna leeyihiin marka wax badan uga faa'iideyn karna ganacsigana ganacsi la dhoofiyo noqon kara yaana ganacsi xirfadiisa iyo noociisa iyo qaabkiisa inta Soomaaliya lagu kobciyo hadana loo dhoofiyo dalalka dariska oo kale ayuu noqon karaa marka tala bixin joogto ah ayuu bankigu siin karaa waxa intaas si dheer oo bankiga uu si xoog la hadaba ugu jira maalgelinta qofkii fikrad gadmaysa keena yaana fikrad qofkii ganacsada ama doonay inuu ganacsada noqdo ama doonay inuu wax abuuro isla markaasna wax gadmi kara keena bankigu uu maalgelinaya kadib halkaas waxa ka abuurmaya ganacsi qof ganacsada doonay inuu ganacsada noqdo cilmiyeysan oo cilmigii bartay tala joogto ah haysta hadii uu hore u dhaqaaqayana muxuu ahaa maalgelintii helaya ma sha Allah bisharadaas hadan dadweynaha u gudbiyo doctore waxa dawadayaal waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijkeenii ganacsiga amal SBC si toos ah kaga yimaada suuq walba maanta waxa martay inuu ku ahaa agaasimaha waxda maaliyadda iyo xisaabaadka bankiga amal sa u jeedaanba bankiga amal himaladiisa waa horumarka bulshada si uu marka ganacsiga u baraaro bankiga amal iyo aqoon-yahanka ka shaqeeya waxay diyaar in leeyihiin inay talooyin ka siiyaan sa ganacsiga horumarin lahaydeen inay tababar inay siiyaan sa ganacsiga horumarin lahaydeen inay talo iyo tusaaleba ayna ku garab istaagaan haddaba qofkii daneynaya in talo laga siiyo ganacsigiisa qofkii daneyn lagu tababaro ganacsigiisa fadlan ha soo waco telefoonka shaashada in ka muuqda ama ha nagala soo xiriiro barta aan ku leenahay Facebooka iyo Twitterka intaba barnaamijkan aad daawanaysaana inta waxaad ka daawan kartaan YouTube-ka oo bankiga amal ku leeyahay page-ku ku leeyahay iyo Facebook-ka page-ku ku leeyahay iyo Twitter-ka page-ku ku leeyahay intaba oo ka daawan kartaan wixii fariin halkaas ayaa noogu soo gudbin kartaan daawadayaal doctor hadan ku soo noqono barnaamijkeeni ganacsiga amal oo maanta ahaa sidee ganacsi ku gaara loo abuuraa qodobkooda waxa ahaa qofku in loo najixiya qodobka koowaad oo aynu ka hadalno waxa qofku inuu qorshe degsado oo yoolka uu ka leeyahay ganacsigan waa qeexo maxayna ku xiga dabcan qodobkaas intayna ka gudbin qofku marka hore waa inuu ganacsigiisa qeexo nooca uu yahay مثلا badeecada ama adeeg uu bixinayo waa inuu qeexa macaamiishu adeegi doono waa inuu waxyaalo ku fiican yahay qofkani ama ganacsigiisa ku fiicnaan doono iyo waxyaalaha uu ku liidan doono uu qeexa waa inuu calaamadeeyo ama asteeyo caqabadaha laga yaabo inay hor istaagaan waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha مثلا marka koobaad ba ay tahay qofku inuu inta qorshe loo gudbin kale intaas marka qofku markuu qoro oo ay ku dagto ayuu wuxuu bilaabayaa inuu ganacsiga markaas qorshe u dejiyo qorshuhu marka wuxuu ka bilaaban doonaa ganacsiga waa ku qeexan yahay waa taqaana laakiin waxaad u baahan tahay ujeedooyinka qofkan uu ganacsigan u dejiyay in uu ka dhigo ujeedooyin مثلا uu hirgelin karo inay yihiin inuu qiimeeyo marka koobaad suurta gelin kara taasna maxaa lagu ogaan karaa inuu tusaale ahaan ganacsiga ilaahay dhaqaalaha uu ku abuuri lahaa uu marka koobaad ba su'aasha ka bilaabo ganacsigan fikradan haya sida hadda bankiga amal oo kale aan ka hadlaynay tusaale ahaan ganacsiga support gareysa Soomaa haddii uu qofkii fikrad gadmaysa uu helay laakiin dhaqaale ma haysto طبعا عقبات waxa macna ma yeelanayso inuu qofkii dhaho مثلا fikir baan hayaa muxuu ahaa wuxuu baahan yahay inuu raas maalka intee ka helo ama capitalka wuxuu baahan yahay qofkii marka inuu isweydiiyo dhaqaalihi ma qaraabaan dhaqaalaha ka heli mise dad kale oo afraad ah oo doonaya inay iyaguna maal gashadaan oo haysta lacag ayuu intuu fikradiisa ka dhaadhiciyo u barasti garay u soo jeediyo ayuu wuxuu weydiinayaa مثلا inay maal gashadaan ku qancinaya oo lacagta intuu ka qaado account ku shubo ganacsigii soo diiwaan geliyo saas ku abuuri doona mise ma bank intuu u tago
ayuu wuxuu ka dalban doonaa maalgelin qofku waxaa laga maarmaanaya in uu qeexo ama calaamadeeyo ilaha dhaqaalaha uu ka helayo maalka meesha uu ka helayo ku socodsiin karo ganacsigiisa marka taas waa midda koobaad ee qofka laga rabo taas markii uu mataqaanaa uu meel saaro oo u caddaata ganacsigu inuu socon karo oo raasumaalkiisa uu helayo ayaa waxaan haddana u baahannahay inuu qofkaasi qiimeeyo situation ahaan xaaladda ganacsiga yani ganacsigan raasumaalkiisa wuu hayaa laakiin waa inuu warqad qalanta qaato uu dhaho lacagtan dadka aad ka qaadayso ama qaraabo ka qaad ama dad maalgashi iyo ganacsato ka ururi ama bangi ka qaad xaaladda markaas lagu jiro ama bishaas ama sanadkaas lagu jiro muxuu ahaa suuqa maalmaha sida uu yahay suuqa shaqaaleynta sida uu yahay macaamiisha productiga ama badeecada uu keeni doona baahida loo qabo inta ay leeyahay wax soo dhan inuu wuxuu baahan yahay uu qeexo waxa laga yaabaa qofka ku filayn inuu soo inta meel fariisto u qoro uu baahan yahay inuu maxay la tashado مثلا dad khubaro ku ah ama xarumaha tababarada iyo cilmi baarista sameeya ha noqoto ama bangiga ba ha noqoto si hadii la sameeyo waa yaraanaysan wax la kala koobiyo ama wax cilmiyeysan buu noqonayaa si fiican marka taasna waa inuu markaas qorsheeyo taas marka waxa u muuqan kara caqabadaha lacagtii uu helay laakiin lacagtan inuu ku suuqan ku guuleysto ganacsigana fikradan inay gadanto oo socoto caqabadaha horsaari kara maxay yihiin caqabadii lafta waxay u baahan yihiin in si cilmiyeysan in loo waajaho oo leeyahay caqabad koow maxaan uga gudbi karnaa koow laba saddex afar aan uga gudbaynaa caqabad laba maxaan uga gudbi karnaa saddex afar shan lix aan uga gudbi karnaa inuu calaamadaysto dabcan markuu intaas sameeyo haddana waxaan soo sheegnay markii horeba ujeedooyinkiisa waxaa ka mid ah macaamiisha adeegi doonto maxay yihiin macaamiishii waad haysaa laakiin macaamiish qabkeed wuu adeegi ma iyagaa kuu iman maadaa u tegi xagee munaasab ku ah waqtigee munaasab ku ah ma habeenba mise maalin goobaha ay uga baahan yihiin in looga hirgeliyo muxuu ahaa adeeg iyo xarumihii loogu adeegi lahaa waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin iyagana in qorshe laga dejiyo oo qofku u qorsheeyo oo dhaho tusaale ahaan seen uga dhigaa adeegayga adeeg meel kasta diyaar ku ah ama badeecada ugu dhow oo qof kasta soo qaban karo oo u baahan in qofka baabuur dheer inuu raaco ama safar ama badeecada in khasaare ay geli karto dijidka la mariyo marka inuu dhaanto see ugu fudud oo loo gaarsiin karaa dabcan intaas waxaa sii dheer qaabkee buu u fulnaa dad noocee u baahan yahay yani shaqaale mise shaqaalaad u baahanta shaqaalaad u baahanta shaqaale nooceed u baahanta kasoo qaad hadda مثلا waxaa dhacdaa qof wuxuu sameynayaa technology dukaan technology-da gada laakiin dad ma haysto qualified ama dad xirfad ahaan technology-da yaqaan مثلا computer-ada furta laakiin ma haysto qofkii computer-dan ciladooda iyo computer-da markaad gaadho haddii wax yar soo baxaan qofkii waajin lama haysto دكتور سلاك عقبتها جرسوا كاميدا هرنتي شركة هايستا قف كمان تجنعسيجا كوف كرايا إنه سنة هيسان بروفيشناليست تضاو وحي ودن كين ذا الشغلان بكجرته دد كان عيد شقة يستمع هايستان وهرون المشكلة وجدتها سماع ودن بوهايستا يعني إن إنسان كي شقين لها بروفيشنال كام حرفة كوها بون لها إنه يريه لكن حلو وجود بكرة tababar joogto ah jaamacadaha mas'uuliye karnaa iyo dad gobaha waxbarashadu inaysan baahida ruuxooda ku saleyn maadaama xataa ganacsiga ka mid yihiin gobaha ganacsiga dabcan su'aashaas de jaamacadaha waxa laga yaabaa inay ka baxsan tahay oo jaamacadahood ku meel goobo ganacsi aan filayo inay yihiin gelaysa laftooda risaale iyo inay leeyihiin iyo qofkii doonaya ganacsigiisa inuu u cilmiyeysnaado dad xirfad leh raba inuu soo shaqaaleeyo dadkii hadduusan helin xataa kuwa uu haysto waa inuu ku dadaalo sidii uu maalgelin lahaa sababtoo ah waxaa la isku raacsan yahay ganacsiga shayga si uu ku najaxo waxaa najixin kara dad naajixiina dadkii say najaax u gaari karaan level ay yani dad guuleysta ku noqdaan xirfadooda waa in cilmiyan lagu gaarsiiyaa yani isku waafaqsan yahay insaanka wax ka bedeli kara qaabka wax u shaqeynayo ama ujeedooyinka kambaniga ama shirkadda u hirgelin karo waa in maskaxdiisa لكن دكتور dadka ganacsatada waxay ku dhahayaan hadii aan qofkan shaqaale aan taabaro biru iga tagayo dhinacay ka furanaya wixii aan hada dabcan fiiri taas waxa keenaya hal arin ama dhowr arrimood baa keenaya waa mid ah qofkan aad tababartay sidee baad ku haysana
waa arrin kale qorshe u baahan iyana si fiican sababtoo qofkii haddii aad rabto un keliya inaad uu ahaado matalan qof kugu shaqeeya qofka haddaan masaalixdiisa tusi karin oo tusi karin mustaqbalka fog oo qofkii aayihiisa uusan kaa dhex aqsan karin oo maalin kasta tababar joogta aad u wadid haddana dhinaca kale aadan tusin dhaqaale ahaan inuu muxuu ahaa uu kugu tiirsanaado adna aad ku tiirsanaato shaqadiisa haddaan la tusin wuu tegi haddana marka hadduu xataa tago waxaad ku qasban tahay mar kasta insaanka kugu jooga inaad muxuu ahaa tababartaad ku qasban tahay marka arrin dhowcan qofku waa shaqaale waxaa ugu nasteexan lahayd marka dadka noocaas oo kale ah oo maaragtay runtii welwelka noocaas oo kale ah qaba horta qofku waxaa ugu muhiimsan uun insaanka qofka u shaqeynaya ganacsadaha in la tuso kow horta in ixtiraam inta uu insaan ixtiraam u baahan yahay la ixtiraamo waxay dhahaan qofku kuma shaqeeya wuu kula shaqeeya shakhsiga haddii uu aaminsan yahay ganacsigan si xirfadaysan oo cilmiyeysan buu ku shaqeynayaa asaga qofku jeclaani isla markaasna uu dareemayo macaashka uu qofkan soo saaro in si munaasab ah wax looga siiyo haddii tusaale ahaan qofkii xooggiisii caqligiisii iyo cududiisii ood ku shaqaysanaysaa laakiin wax ku filan maada siinin ama wixii uu mudnaa maada siinin yani innaga matalan waxaa nugu badan dadku oo dalalkeena aada loogu dhaleeceeyaa soomaalida inaan aada u jecelnahay inaan macaashka aada u kordhinno oo qofku uun nambarada macaashka uu xooga saaro laakiin qofku haddii uu ka fikiri lahaa hay-addan ama mu'asasadan sidai u dhismi lahayd dadkeedii iyo dhaqaalaheedii waxoo dhan ay kobci lahaayeen waxaa laga qofkan inuu dareemi lahaa asna wuu shaqaynayaa kambanigiina ama shirkadiina way kobcaysaa asna wuu kobcayaa marka inta uu wax soo saarkiisu la eg yahay ama sanad kasta inta ay shirkadu kobcayso iyo qofkiina dhaqaalihiisii kobcaya laakiin hadda waxaad arkaysaa shirkadii maalan dhaqaalaheedu 1 milyan ahaa qofkan mushaarkii uu ka qaadanayay ayuu weli qaataa shirkadan markii raasmaalkeedu 10 milyan noqday taa marka qofku muxuu dareemayaa wallaahi de inta qofkan uu ku shaqaysanaya dadka uu ku shaqaysanaya in la eg baadna ku shaqaysan kartaa buu leeyahay soo ma لأنه قفك هرت كو ما توابرنا إنه صار فكرة حكينا ستوابر يارده ما دسنا مد البعض نحكينا يسا قفك ما جنع صدها الله شقي مشقة بحيي أيان أسقون محوها أن لهين محوها سي استراتيجي أنو فكرين يعني يور فوق ماله محوك فكرة يعني هسات سنة كان معاش في عن كوه الله مرك واحد بطم لاين كلا هم بس وكفكرة بطم لاين كوا محي يعني سنة كان معاشي سواء مس وحكوا ذاتك مشاركة السنتين اللي هي أخلاقيات كل بالعادة كل بحيث توابركود وامسة ذاتك ظروف كورقب كود العادة كل بحيث انت دانتا waxaa soo dhan waa waxyaalo maanta dadka ay aad u fiirin marka maadaama qof waxa ugu muhiimsan baa lihi kala Soomaha oo yaana shakhsiga dadka ay u arkaan sababta waxaan akhrinay maalmahan Donald Trump buuggiisa ganacsigiisa waxyaalo ka hadlay waxa kamid dad 20 30 sano la shaqeynay oo leey maalin ganacsi 8 markaan ganacsiga bilaabay dadkii shaqada ila bilaabay ila hadii la joogo shaqaale ah waxaan wuxuu leeyahay ku qanacsanahay waan jecelahay buu leeyahay dadkaas wax kastaan u horeeyay wax kasta ay u horayaan laakiin waxba la isoo horayaa markaas يعني شخص كان أود بالسيء كمبانيجي أما الشركة دي وأسميهن قفكي كان عصا شركة إسكالها يقفكي كيلو شقيني كي شقيني وأسميهن سي أودي سي إزلاء أوبرا تسكرين يعني ما أوفرين يعني بقالها سي ترانسبارنت وموقتة وأن عندك قرصونا بأوقع بسنة يعني أو ليه هو حاسد ليه دهن إذنكم أنا أنت يرتاح إيه هريسة هدي لكن أيتها وحنا أنا وذا قاضي إذن كان محور شقالاتين أمر قاطع طبعا واحد الشركات بدنا هو كبر بران مركز الشركات ومركز أي كلا يعيان مثلا شنتي قف الشركات أما جناس وشقينيس شن كبري كلا فران يان وحكينا يمحوها عدالة دارو يدور المي يقف كحو طبعا أيه وحاول طبعا يمرون بهم سوابين وعرين كلا لكن قف كين وحتبنا يوم بموقته مركز قناع عذرة وحي كان تقف إنه قف أنت سجدته وإنستيوشن يدنا كقيب قال سماه دكتورة وكقيب قادتها إن قفكم ممكن سوى شغل تجاه صباح ذي إنه يعني قناعسن yahay faraxsan yahay saameynta ku yeelanaya ama energy u gelinayo awood u gelinayo ganacsigii waxa weeyaan dhinaca dhiirigelintu waxay ka imaataa markasta subax kasta qofka shaqada uu qabanayo iyo soo qabanayo iyo culayskeeda tusaale ahaan ganacsiyada Soomaaliland su'aalkaasina qaar aan la shaqeeyay ama tababaran wax ka siiyay waxaan xasuustaa ganacsi waxaad arkaysaa qof ganacsada ah oo shaqaalihiisa qaarna inay joogaan in kala aan kala jeclayn qaarna يعني أكتيس أي كتها لما تابتان إنك تجان أو حتى مرة قال كده هي جتجن حظ بهانتا كنعسي كلمة يقول كسينا يعني كن دور إسنا لا بكون عن كسينا عنه
bishii qofkaas wuxuu dareemayaa in la ixtiraam inta iga tagi lahayd waxaad u baahantay yaa ka xiga aniga marka qofku labadii qof way saaxiibayaan labadii qof isku aayay noqonayaan isku masiir isku meel ay u socdaan markaas yaani marka marar fara badan waxa keenaya shaqaaluhu inay institutionkii ama hay'adii ay la shaqeynayaan ama ganacsiga ku shaqeynayaan ka taga waxa keenaya mataqaana markii hore qofkan si fiican loogama dhaadhicinin lama cabsiinin lahaansho iyo meesha loo socdo in si fiican loo cabsiyo xagee loo socdaa ma oga waa la keenay qofkii shaqadii uu bilaabay mushaarkiisa uu ka fiirsadaa mushaarka inta faraha badan ama waxyaalaha مثلا inaga dalka Soomaaliya ka jira waxa kamid ah waa the performance measurement iyo qof dadka wax soo saarkoodii shaqadoodii iyo timekoodii aad looma qiimeeyo Soomaa marka shakhsiga inuu ku guuleystay shaqadiisii inuusan ku guuleysanin wax badan laga ma ogaan karo ama lama ogaba laano markii horeba qorshe weyn oo la hirgelinayo degsan baan jirinba marka xataa qofkan lama qiyaasi karo shaqadii uu ahayd inuu qabto ma qabtay mise ma qaban sababtoo shaqadii loo dhiyo marka hore si fiican u qeexnay marka waa muhiim in qofku uu dhaho guusha qofka shaqaalaha guushiisu waa guusha shirkadda guusha ganacsiga waka yaana guusha ganacsiga iyo guusha qofkan isku xiran yihiin marka qofku markii lagu tababaro dhaho haddaad doonaysa inaad guuleysato ganacsigu ha guuleysto marka qaarkood waxa dhici karta qofka shaqaalaha inuu ku fikiro adigu guuleyso laakiin qofkan maamulaha ku ah ha fashilmo laakiin de fikrad ahaan sax ma aha suurtagal ma aha in maamulaha ugu fashilmo aad guuleysato waa iskala dhacaysaan ama waa isla koreysaan Soomaa marka qofba ka sareeyo haduu guushiisa ka shaqeeyo dabcan waa la wada guuleysan Soomaa qofka la jira haduu ka shaqeeyo guushiisa oo labadii qof ee sinayd hadda ka hor waxaan akhrinayay ninba wuxuu yiri shaqo kasta oo qofkii ka lahaa uu taagnayn waa shaqadaadii waa qaacida cajiib shaqo kasta oo qofkii ka lahaa haddaad qasnaji baad ahay qasnaji ma tiid adiga laakiin waxa artay dad qasnajiga muxuu ahaa xafiiska meesha lacagta lagu bixinayo dhoobana artay haddii aad ka qaban karto ka qabo lacagta qabo laano qofkii ka lahaa baan taagnayn haddii laakiin uu maqan yahay marka waa maxay ana waxaan markaas aan lacagta qabanay maxaan shaqadan qabanaya taydii ma aha laakiin waxa u aragtaa maadaama qofkii waa inuu najaxaa qofkan guushiisa oo aan ka shaqeeyaa asna oo guusheeda ka shaqeeyaa marka labadana waa aan soo shaqeynaa then labadana waxaan ka shaqeynaa qofka naga sareeyo maamulaha suu ku guuleysan lahaa kadibna maxaa sameeynaa wasla guuleysanaa idan marka waxa ugu badan ganacsigu ku guuleysto waa qiyam iyo value yani waa dhankaas moodaa inuu waa dadku inay ka midoobaan meesha loo socdo qaabka loo soconayo yani sida loo soconayo xataa hadaan laga midoobin oo qof kasta xirfadiisa goonida wato ama uu approachkiisa maxaa la dhahaa manhajkiisa uu goonida haduu wato isku meel loo dhaaqay ma marka waxa loo baahan yahay in meesha loo socdo laga midaysan yahay manhajkii lagu gaari lahaana laga midaysan yahay Soomaa natiijada la filayana laga midaysan yahay haddii marka aysan taas jirin suurtagal ma qorshe marka waxa macna ma keenay taas waa marka mid sababtay in qorshe la sameeyo qorshaha markii la sameeyo wixii waa la wada qori ganacsiyada qaar baa waxaan dhahaa mar farba markii aan talooyinka bixin jiray maxaa idin qorshaysan marka way sharaxi runtii ma xuma inay sharaxaadooda afku sharax marka qofkii markuu afka ka sharaxo wixii qofka ku xig hadaad weydiiso sabab u sharaxaysna sidii u muuqato mar walba sidii isna ula muuqato suu fahmay ganacsigan uu socdo marka maamulihiisa uu sharaxay wuxuu leeyahay waxaan rabnaa saasaan rabnaa macaamiisha inaan ugu adeegno waxaan rabnaa inaan xaqiijino qofka suuq geynta joogaad u tagay marka saxadii maxaa idin qorshaysan sidii la qurxan buu isna sheegay qofka shaqaaleyntaad u tagay isna si ka duwan buu sheegay taa maxaa looga badbaadi karaa qorshe qoran inuu jiro xafiis kasta yaala darbi kasta ku dhagan qofka hadii la weydiiyo maxaa idin qorshaysan soo magaalada maray uu dhihi karo 1 2 3 4 5 noo qorshaysan waxa bisan yahay asoo suuqa jooga oo ani marka midna aan meelahaas aan taagnahay yani dadku markay arkaan midna hada amal aan ka shaqeeyo Soomaa qof markuu soo baxo dareemo aan taana oo waa ninkii amal ka shaqeynay ha usoo shirki amal marka maxaa isku xiran يعني قفكي أفكار تيسي يقيم كيسي يوقش قيني يسوء فلني منهج كيسي يوحد ها إكزاكتلي marka waxa soo dhan waxaan u baahanahay inaga midna ganacsiga nasuuno ganacsi guuleysta fiiri ganacsiga Soomaalidu hadda uu kobcaya marxaladii ugu horeeyay ku jira si uu marka u guuleysto u gaaro marxalad uu tartami karo oo uu hor istaagi karo ganacsiga dibadda ka iman doona mustaqbalka waa in la xirfado waa in la cilmiyeeyaa waa seel uu cilmiyan karo waa in dadkiisa la cilmiyeeyaa la dhisaa marka sida uu leeyahay Robert Kiyosaki wuxuu dhahaa cilmigu ma aha kaliya in jaamacad iyo iskuul la aado shardi ma aha dadku
xafiisyada lagu tababari karaa cajalada dhageysan karaan buugaag ay akhrin karaan tababar ay xaadiri karaan barnaamij noocan oo kale fiirsan karaan hadda aan duubayno qaab badan jira magaziino ama joornaalo soo baxo cilmiyeysan bay intay xubin ka noqdaan bay la socon karaan marka barnaamijka waxa la rabaa xataa wali wuxuu leeyahay roodka saaki cilmiga ama waxbarashada tababarka informalka ee dadban oo aan jaamacad iyo iskuul aan la xiriirin ayaa aad uga fiican inay ganacsiga ganacsigu ku guuleysto dadku aqoonta ay kala imaadaan akademiga sida kale wuxuu u dhahaa jaamacaduhu qofka uma suurtageliyaan inuu suuqa ku guuleysto mar kasta laakiin tababarka informalka ah ee suuqa qofka lagu tababaro waxay u fududeyn kartaa qofka inuu suuqa ku guuleysto marka tababarada kamid caadiga oo suuqa qofka lagu tababarayo muxuu ahaa ganacsi hebel u shaqeeyaa si industry-gan u shaqeeyo ma sha Allah doctor Ahmed qodobkii koowaad inaynu ku jirno ah qofku inuu markuu ganacsi sameysanayo qorshe degsanayo inuu yoolkiisa cadeeyo waxmada xalaqadii inay intaas ay ku egtahay waa hagaag daawadayaal intaas waxaan ku soo afmeeraynaa xalaqadeennii sideedaad ee barnaamijka ganacsiga amal oo martidana ku ahaa Dr. Bashiir Cabdisamad Xareed oo ah agaasimaha waaxda maaliyadda iyo xisaabaadka bangiga amal barnaamijkana mar walba waxaanu ku soo qaadanaa barnaamijyo taabanaya ama horumarinaya ganacsigeena haddaba wixii su'aalo ah qabtaan ama aad jeceshihiin mowduucyo in kala hadlo fadlan nagula wadaaga telefoonada inay kaga muuqda shaashada iyo barta aan Facebook ku leenahay iyo Twitterka iyo YouTube-ka aan ku leenahay baan nagula wadaagi kartaan wixii su'aalo u baahan tihiin ama wixii mowduucyo in taabanaya aad inaan wadaagtaan aad jeceshihiin ama inaan kala talino aad jeceshihiin intaan marka aanu ku wada kulmi doono xalaqatan lamid ah asbuuca dambe intaas iyo waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.